ismaaciil dhibuu u geystay durdur lacagna wuu ka cunay cumar sidii oo ninkaan ku caawinaya adiga hada daawanaya maxaa ku baxay xasan tob ma laga gardaran yahay mise laga gardaran saaxiibka cumar krish nawaay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ولكن محمد ديكو سو دواده هدي عدنا عصبتها ويلكم هدي عدنا اللي جوجتينا قول اوكي ما انت برنامجك وا حسن توب حقيسة ودلاعي أمانة الله أمانة رسول حسن توب حقيسة وصو دلاعي مركا دقالك عمر كريش iyo اسماعيل حاجي عركو وكسيو سعدا مركا لكن انا ما انت وحن كهدلينا isla saacadan waxaan ka hadlaynaa xasan tob xaqiisa ma soo baxay mise adiga daawanayo waa noogu jirtaa ra'yigaaga fikirkaaga maxaa yeelay youtuber oo dhan adigay ku shaqeeyaan oo adiga habi kaa dhigaan insha allah intaan barnaamijkayga u guda gelin waxaan rabaa shout out inaan u sameeyo two channel oo kala ah nadiifo qaran hala booqdo hala soo dhaweeyo waa channel cusub blue starna hala ugu soo qor meesha adigana waxaan ku leenahay nadiifo qaran dadaal horta u soco wax ma kaa tegin okay ka gudub channelka labaad aan soo qaadanayna maanta wuxuu yahay cumar oscar waa libaax marka asigana hala booqdo wax badan oo idin hayaa ha hey عايشة أولين وسليد هاد في عمتي هذا السرسو حقيقة من كان إليش هذا سليد على مونوي أنا قبل المرحلة المرناية ما أنت سديدات وايد تنتي أنا وجيدين ما شاء الله سيدا إيه كدكتور وسليد نفقيسن على اسمه وحيابه هربل سليد هون وادي كوب شيء وحيت تنتكي إلى أنا ساعة وبحين ساعتين هذا ديرين ساعة سليد واحد كيلو ساعة ودن إنجليزكا waxaad kaloo ka helaysaa waddanka maraykanka lambarada aad ka helaysiina shaashada ay ku qoran Soomaaliya qaasatan xamar waxaad ka helaysaa bukeerka faatiyo oo ku yaal degmada xamrweyne waxaad kaloo ka helaysiin saliidan cid u baahata anigoo nimaax mideyba ah adiga soo xiriiri kartid youtube-kayga qiimaheedana saliidu ma badno marka cid ala cid danaynaysa saliida tinta sidaa ka dhigayso waxaan leenahay nala soo xiriira saliida Aisha okay waa tahay barnaamijka aan u gudagalo xasan tob sidaan ognahay waxaa ama wuxuu leeyahay durdur media waa ogsoon tahay durdur media waxay ahayd midda ugu tobsan muqdisho millions viewersay haysatay subscribe-kan wuu u badnaa sida loo joogay oo waxaa ka shaqaynayay dhowr qofooday soo saartay dadkaa dhan hadda oo muqdisho wax sameynayo dhan durduray ka wada imaadeen qaarkood inta badan haa aan dhahe laakiin anaga focuskeena wuxuu saaran yahay ozil iyo ismaaciil xaaji iyo ozil waxay ka imaadeen durdur media ayay ka imaadeen oo maxaa la dhahaa intaysan mataanaha furanin durdur mediay ka shaqayn jireen adiga waa og tahay okay durdur media waa isku dhaceen annaga ma ogeynin laakiin waxaan ogaanay dagaalka hadda cumar krish iyo ismaaciil ayaa ka shifay wixii ka dhex dhacay ismaaciil iyo xasan tob cumar krish ayaa dhahaya saan insaanay wax u jiraan taa laakiin gadaal aan dhiganayaa hadda waxaan ku sheegayaa aan kusoo xasuusinayaa ismaaciil markuu kasoo tegay iyo ozil ay kasoo tageen durdur mataanaha ay furteen waa la soo dhaweeyey hore u socdaa la dhahay cimaamadda waa lagu turtuuray anagaa ku jirnay xataa blue star media okay runtii markii qofka uu joogo Soomaaliya oo biil laga rabo dee youtube-ka aniga ani ahaan fikir waxaan ka haystaa dadka Soomaaliya jooga dhammaan inay YouTube wada furtaan kulli ay wada soo hadlaan YouTube-ka waxaa laga helayaa so marka inta
aad soo tahriibi lahayd aad dhiman lahayd magafa u gacan geli lahayd youtube furo soo hadal gurigaa ka soo dhex hadal taa fikirkaa waa aaminsanahay okay mataanaha waxay noqdeen dad oo dadaalaya dad oo runtii hore u socda aad loogu xirmay laakiin waxaa naga qarsanaa why ee durdur media uga soo tageen waa leega jabsaday xasan wuxuu dhahay waa leega jabsaday waa leega sida inta jabsashada keliya ma ahaynin arrin kalena way jirtay oo hadda cumar karish noo caddeeyey laakiin xasan ma u caddaynin xasan toob ma sheegin maxaa yeelay soomaaliya runtii qofkii kaa weyn abugaa waay arrintaa waa ila socoteen amalena xasan toob arrintaa hadda cumar karish ka dhawaajiyey ama ka hadlay ama dhahay ama soo sheegay markii ismaaciil iyo cumar karish isku dhaceen soo baxday xasan markiisa hore ma ka hadlin keliya wuxuu hadalku kusoo gaabiyey durdur waa la dhacay taana way jirtay taana way jirtay tan hadda cumar karishna sheegayna way jirtay labadaba way jirtay laakiin midaan waa laga dhacay u qaatay ka gudub xasan wuu habartam video soo duubay sida hadda mataanaha exactly sida mataanaha hadda ay ismaaciil xataa uu ooynaayo maxaa la dhahaa ishaan oo mataanaha hadda bro oo saan ugu soo hadlaayo fartaada filaq makaaga dhacda balaayo waxaa dhan uu sheegaayo xasan wuu soo suubiyey xasan wuu calaacalay okay aan ka soo tagna xasan toob marka baash waxay noqotay ismaaciil horta micnaha saaxiibtinimo oo waxaa ka dhexaysay cumar karish iyo xasan toob dad saaxiibo ahaayeen ismaaciilna waa saasoo kale saaxiibay ahaayeen okay markii ismaaciil mataanaha oo furtay cumar karish wuu caabiyey laakiin cumar karish asiga naftirkiisa wuxuu ogaa oo xasan toob kala sheekaysta ilaan aniga xataa dee ma itaqaanid intaana daawanaysaa kadibna waa kaa tegayaa dee 20 minute wax ka yar 10 ilaa 15 minute ayaa daawanaysaa so marka keliya ma itaqaanid qofka aan la hadlayo qofka aan gadaalka la hadlayo ma taqaanid okay cumar karish wuxuu ogaa marka sirtaan hadda qarsan oo hadda uu soo bixiyey wuu ogaa laakiin ma ka hadlin cumar karish wuxuu ogaa ismaaciil oo xitaa sheer uu sii suubiyey alla cumar caadima walaa libax atee wallahi nin adiga ka xirtay nin facebook jacliya nin adiga aa ka xirtay youtube-ka adiga aa cuntay adiga asiis haddana sharcada loo suubiyo ilmaha way dadaalayaan adaa cuntibe kii horba caadi batid geese okay taa waa iga kaftan laakiin jiritaanka si fiican u taqaana cumaro marka cumar wuxuu ogaa ismaaciil iyo xasan inay keli isku qoslaan laakiin labadooda inside-ka ay isdagaalsan yihiin cumar wuu ogaa okay aniga ismaaciil ma u malaynaynin inay isku jufa yihiin cumar karish yani qolo kale u haysta ismaaciil laakiin maantaan bartay cumaraa ii sheegay cumar markuu ogaa waxa ay ku sameeyeen ozil iyo ismaaciil xasan toob cumar weli wuxuu usii suubiyey ismaaciil shout out usii suubiyey mataanaha kii hadda uu cunay asaa cumara kor usoo kiciyey asaa afkiisa ka qarinaya asigoo og xasan toob waxa ku dhacay oo xasan toobna ugu sheekeeyey waxaan ani hadda aan sheegaya ama aan iska keensanayo ma aha cumar karishaa noo sheegay wax aniga hadda maskaxdeyda aan ka keenayo oo aan raba inaan wax ku raadsada ma aha laakiin cumaraa noo sheegay cumaraa waxaa dhaa badaadiyey ma fahmaysaa marka why xasan toob haddii laga gardaran yahay durdur channelkeeda youtube-ka
Ozil iyo Ismaaciil uu Xasan Toob dhahayay labadana iga cunay labada ayaa jabsaday hoose ah because oo u soo dirsadeen nidaamiye laakiin ayaga jabsashada YouTube-kooda ka hor ay ka tageen waxayna ugu tageen Cumar Krish noo sheegay lacag Sacuudiga laga soo diray ee cuneen oo dhahay okay marka arinta aan rabaa waxay tahay Cumar Krish hadduu ogaa lacag inay cuneen ee wiilkan Xasan Toob ee ku soo baashaaleen ee Xasan Toob haddana nidaamiye u sii adeegsadeen ay durdur dhanba la kacay oo Cumar Krish ogaa weli uu sii caawiyey hadda Cumar wuxuu noo sheegayaa waxaasoo dhan oo gadaalka sheegay hadda Cumar wuxuu sheegayaa Ismaaciil inuu soo wacay uu dhahay saaxiibo barasho wanaagsan ani iyo adiga isku jufaanahay inaa caawisidaan rabaa oo Cumarna ogolaaday okay Cumar markuu ogolaaday iyo barashada horeysay ninkan marka jufadiisa Cumar jufadiisa durdur dhib u geysatay Ismaaciil dhib u geystay durdur lacagna wuu ka cunay Cumar sidii oo ninkan ku caawinayo adiga had daawanay marka maxaa ku baxay Xasan Toob ma laga gardaran yahay mise laga gardarna saaxiib ka Cumar Krish nawaay Xasan Toob marka waa hadartame Xasan Toob wuxuu ujeeday Ismaaciil iyo Cumar Krish inay walaalo yihiin sidii iskaga aamusa marka hadda Ismaaciil iyo Cumar Krish isku dhacay hadda Cumar marka wuxuu noo sheegayaa oo leeyahay ninkan wuu soo wacay isku qabilaanahay aan isla socono ninkii anigoo og wax walba oo Xasan Toob uu ku sameynay anoo og aa caawiyo dhahay qalad miyaa mise waa saxan yahay adiga ka rabaa jawaabta hoos noogu soo qor anaga wax la filan qalinana dhammaan waa walaaladeena laakiin adiga waa garsoorka ani abukaatiya ahay baa hadlayaa adiga garta goy yaa qaldan Xasan Toob xaqiisa ma soo baxay mana loo qaadan karaa isku dhacaan ma loo qaadan karaa mataanaha stiil Cumar inuu u qarxinooyo mataanaha ma loo qaadan karaa ma isleedahay adiga maadaama ay Cumar iyo Ismaaciil ay yihiin isleedahay intaas ayaan videogan kusoo gabagabeynayaa waa walaalkii Maxamed Dekow waxaa idin leeyahay no hard feeling aniga just abukaata ahay garsooraha maxkamadda waa adiga hadda daawanaya waxa aan ku go'aamisidna hoos ugu soo qor waa idin salaamayaa dhammaantiin dadka aan jeclahay aan ku faano waa walaalkii Maxamed Dekow mar labaad intaan video lamid ah ku kulmi doonaa anigoo soo dhaqsanaya waa mahadsantiin daawashadiina please qofkii raba inuu ila soo xiriiro Instagram-ka ila soo xiriiro meel walba maca salaama